أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. marka hore Allah ayaa mahad leh isugu keenay noona saamaxay inaan isugu imaano annagoo ujeedadeenu ay tahay in aan kaalmayno walaalaheen meeshaan fadhigaan aad u quruxda badan oo wanaagsan. walaalayaal ujeedada aan u duubayno klibkan wuxuu yahay in aan mahad celino annagoo u mahad celinayna marka hore ilaah ka bacdina waxaan u mahad celinaynaa dadkii walaalaha ahaa ee ayaga u istaagay oo u kacay waqtigoodii iyo hantidoodiiba geliyey inay u gargaaraan walaalahood ay dhibaatada ku habsatay fatahaada biyaha ee magaalada Beledweyne. walaalayaal waxaan idin leenahay haddii aan nahay beesha ka soo jeedo magaaladaas Beledweyne annagoo ku hadlayno beesha gobolka Hiiraan waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin ilaahay wixii ay geysateen oo wanaag ah wax ka khayr badan ha idinku bedelo. waxaan u mahad celinayaa Soomaali oo dhan haddii ay joogaan dhulka gudihiisa haddii ay dibadda ay joogaan meel kasta oo ay Soomaali ku sugan tahay waxay muujiyeen walaaltinimo in Soomaalidu ay yihiin dad walaalo ah oo isku aabba isku hooyo ah. waxaan ka rajaynaynaa ilaahay in waddankeena noo hagaajiyo isjacaylkaas qalbigeena ku jiro oo ka dhigo midkii waddanka dhan oo ku liibaano. waxaa hadda horteeda taalo lacag ay noo soo aruuriyeen dadka degan Canada ee reer Toronto qaas ahaan. waxaa meeshan hadda taala lacag dhan $50,000 oo ay noo soo aruuriyeen jaaliyadda reer Canada qaas ahaan magaalada Toronto. $50,000 Canadian-ka waxay u dhigantaa qiyaastii $40,000 oo Amerikaan ah. waxaan leenahay walaalayaal waa mahadsantihiin hawshii waa bilowdeen waxtarkiini waa uu muuqdaa. Soomaalidu waxay yiraahdaan waa bariye sacbo laguma qariyo horteeda ayuu yaalaa mana nihin run ahaantii kooxdii ugu horeysay oo lacag loo keenay magaalada Toronto. waxaa jira dad badan ayaa isxilqaamay masaajidada lacag ay aruuriyeen dad badan oo waxgarad oo magaalada joogana lacag ay aruuriyeen marka lacagta annaga waa qayb baan ka mid nahay laakiin waa ay badan tahay. waxaan jeclaan lahaa inaan si khaas ugu mahad celiyo dadka noo saamaxay meeshaan aan fadhino oo ah aan ku shirnay Somali Immigrant Aid Community Center oo noo saamaxay si hagar la'aan ah in aan shirarkeena ku qabsano lacagaha aan ku aruurino aan ku kala warqaadano. waxaan kala u mahad celinayaa masaajidada oo dhan oo ayagana si gaar ah arrinkan ugu istaageen. khaas ahaan waxaa annaga hadda lacag naga soo gaartay masaajidka Tawfiiq ee magaalada Toronto laakiin masaajidada intooda kale si gaar ah ayaa waxoodu aruursadeen iyadoo ujeedadu ay tahay ood qaadis iyo jilid waa isla gurigeyn iyadoo hal meel u socoto oo ujeedadu ay tahay dadkaas walaalaheen ah Beledweyne jooga ee fatahaadu ku dhacday in loo gargaaro. waxaan leenahay kulligiin waa mahadsantihiin jazaakumullahu khayran. waxaa mudnaan gaar ah mudan gabdhaha Soomaaliyeed oo sidii waddankeena u burburayba caan ku ah in ayaga hantidooda xoogooda ay dadaal aad u badan ku bixiyaan meel kasta oo gargaar ku saabsan ama haddii dad tabaalaysan loo gargaarayo ama haddii musiibo dhacday oo soo dirisay sida midaan oo kale ah aad ugu muxuu ahaa aad iyo aad u mahadsantihiin aan leenahay muhiimad gaar ah leeyihiin. waxaan u mahad celinayaa walaalihii Toronto oo dhinacyadeeda joogo oo nagala qayb qaatay noogu soo wareejiyay lacagta intaas la eg oo ayagana waqtigooda geliyay. waa mahadsantihiin. hadalka waxaan u gudbinayaa hadeertaan walaalaha inta fadhiyo qayb mid ka mid ah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. caawa oo ay tahay November 15 sanadka 2019 annagoo ah adeegayaashii u adeegayay Beledweyne fatahaadii biyaha waxaan ku kulansannahay Somali Immigrant Aid oo aan runtii ugu mahad celinayna meeshan quruxda badan ay noo qabteen. waxaan magaalada Toronto
ka soo aruurinay lacag gaaraysa ilaa 108,000 45,000 waxaa guray masaajidka khayr Allah ka siiyo 13,000 waxaa guray shirkooda kaldensa khayr Allah ka siiyo 50,000 halkan ay taalaa markii la isku darayna waa 108,000 oo dollar runtii dhammaan bulshaweynta reer Toronto haddii aan nahay dhammaantiin intii ka qayb qaadatay waa ay ku mahadsan yihiin gabdhaha Soomaaliyeed ee habeen iyo maalin albaabada garaacay ee dadka jidka u taagnaa masaajidada taagnaa meel walba taagnaa waa ay ku mahadsan yihiin khayrka ee walaalahood reer Beledweyne la dooneen dadku waxay isleeyihiin waa daahdeen laakiin ma daahin Beledweyne sanad soo socda iyo 2 sano soo socotaba way u baahan in lacag loo guro la garab istaago la dhiirigeliyo marka runtii haddii aan nahay bulshaweyntii reer Toronto waxaan leenahay lacagtaas gaaraysa 108,000 walaalaheen reer Beledweyne Allah gaarsiiyo wixii kale awoodeen ana waan soo wadnaa haddii Ilaahay yiraahdo waana soo dadaaleynaa idinkana waad mahadsantihiin waxaan ku wareejinayaa mid ka mid ah asxaabteena la shaqaysay oo halkan fadhiyo assalaamu calaykum waxaan aad ugu mahadceliyaa walaalaheen isu xilqaamay inay walaalaheen fatahaadda ku dhacday dhibka ku dhacay inay wax u qabtaan maalintii la soo sheegay ilaa hadda dadaa jiro oo guddi oo is xilqaameen oo shaqadan qabteen gabdho iyo wiilal leh gaar ahaan reer Beledweyne gabdhaha iyo wiilasha ka soo jeedaan waxaan leenahay waa mahadsantihiin anoo ku hadlaayo odayaasha magaalada Toronto waxaan leeyahay shaqo fiican aa qabateen waa mahadsantihiin qaar Allah idinku siiyo ilmihiin Allah idinku badbaadiyo dhammaantiin guddiga waxaan leenahay waa mahadsantihiin dad ka soo qayb galeen ganay busuri idinkana waa mahadsantihiin walaalihii jiro shaqo fiican aa qabateen qaar Allah idinka siiyo waa mahadsantihiin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم meeshaan waxaan isugu nimid dad muxsiniin ah oo muxuu ahay waqtigoodii iyo waqtigii shaqaysan lahayn waqtigii nasan lahaayeen geliyey inay wax u aruuriyaan dadkaas muslimiinta ah oo fatahaadu ay gaartay oo dhibaato badan ay gaartay inay wax u aruuriyaan oo har iyo habeen u socday wax aruurinayay howlahoodii iyo shaqooyinkoodii iyo danahoodii gaar ahaaneedna ugaga tegay wiilal iyo gabdhaba leh ajir iyo xasanaad Allah ka siiyo inna allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin nin walba wax galana ilaahay ma iloobo abaalkiisa iyo adduun iyo aakhiro ku aflaxaya ilmahooda ilmihiinana ilaahay ku badbaadiyo wadankan waa iska dhib yara teeda kale waxaan waa musiibo rabbaani ah laga yaabee fikradeyda in ilaahay uu Soomaalida ku camal tusaayo si ay way arag ugu noqdaan ay isu jeclaadaan oo wadankooda iyo wuxuu ahay dalahooda ilaahay u tuso inuu tii ay ku midoobi lahaayeen oo ay danahooda iyo wadannimada iyo dalkooda ay ku badbaadin lahaayeen gacnaha isu qabsan lahaayeen inuu ka dhigo mid kalena ilaahay naga badbaadiyo haddii ay jiraan wax muqaalifa amaba yani is afgarashawa silmi ah ama peaceful ah amaba nabadgelyo leh in la wada hadlo lagu heshiyo sida wadankaas loo dhisi lahay wadankani wuxuu ahay wadamada Afrika ugu horeeyo ciidan ahaan ayuu ka mid ahay anigu lafteyda ka mid ahay ciidankii waagaas lagu faani jiray maantana waxay tahay in annaga yani dawaca kasta isku dayday in wadankii ay soo hunguriso marka taasna ha laga taxadiro wixii khaldan Allah toosiyo calooshoodan Allah u furo waa soo ducaynana wax kale oo sheegi karna ma laha muxuu ahay Soomaalidu waxay tiraa inkaar oo dhan waa dhimo duco dhan waa noolow marka waxaan leenahay Soomaali ha noolaato
ilaahay ha badbaadiyo calankaas iyo ciidaas iyo ummadaasi waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay badbaadiyo waxaan hor yaalana waa lacagtii lasoo aruuriyay oo loogu talagalay dadkaas dhibaataysan oo biyaha fatahaadda ay qaadeen yacni waxaan qiyaasayaa marka cid gurigeed iska joogto xoogaagii sokor ay karsan lahayn ama bariiskii ama wax allaale waxay haystaan oo dhan biyo ka qaadeen oo qaarkood ku dhinteen qaarkood ku xoolo beeleen qaarkood ku hooy beeleen marka intii waa wax soo aruurisay wiilal iyo gabdho aad iyo aad iyo aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin ilaahina idinku maaragtay anfaco adduunyadiina iyo aakhiradiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu raxiim halkan waxaan iskugu nimid inaan lacag lasoo aruuriyey aan guddoonsiino guddoonkii qaadi lahaa lacagtana cadadeeda horaa loo sheegay waa 50,000 oo Canadian ah lacaga kalena way jiraan marka waxaan mahad weyn aan u celinaa dhammaan rag iyo dumar intii isku xilqaantay oo lacagtaas soo aruurisay oo isku keentay dhammaan waan u mahad celinaynaa gaar ahaan waxaan u mahad celinaynaa gabdhihii Shamse Ibrahim Boolis iyo Jamiila Khaliif iyo gabdhihii la shaqeynay iyo dhammaan community-da aan hadda fadhino inta ka shaqeyso oo garab iyo gacan nagu siisay inaan arrinkan aan qabanno intii soo abaabushay iyo intii ka shaqeysay dhammaan waa mahadsan yihiin ajir iyo xasanaad Allah ka siiyo inta loo geynayana ilaahaygi weynaa waaxidahay caafimaad iyo barakaha u saaro marka dhibaatadan soo noqnoqotayna ilaahay ummadaha ka saaro Soomaalina bageeda burcad Allah isku mariyo hadday bari joogto iyo hadday waqooyi joogto iyo hadday koonfur joogtaba ilaahaygi weynaa waaxidahay nabad wadanka ha dhigo barwaaqo ilaahay ha dhigo hiiraana dhibaatada culus oo saaran ilaahay ha ka dulqaado